xafiiska canshuuraha waddanka Norway ayaa lagu soo waramayaa sanadkan 2026 inay soo faagfaageen kiisas dambiyo waaweyn ah oo ku saabsan isdabamarin dhanka canshuuraha ah, waxaana lagu soo waramayaa dad badan oo canshuuraha isdabamari jiray iyo kuwo badan oo ka shaqayn jiray xafiisyo ama xarumo ay dadka ugu fududeeyaan sidii canshuuraha ay isku dabamari lahaayeen ay dabagal ay ku sameeyeen kusoo ogaadeen. Tiro dhowr ah ayaa hadda loo soo qabtay oo lagu sheegay ilaa iyo 5 qofood oo fududeeyayaal ah, kuwa oo canshuuro ku dhow 2 bilyan oo koronka Norwejiga ah isdabamarin ku sameeyay. Waxaana lagu soo waramayaa in maamulka canshuuraha ay arrimahan dabagalka ku bilaabeen bishii February ee sanadkan, kadibna ay soo ogaadeen isdabamarino badan iyo dhaqaale lunsi ka jiro dhanka canshuur bixiyayaasha iyo sidoo kale kuwa kale oo lagu sheegay in ay fududeeyayaal yihiin oo ay isdabamarintaasi ku takhasuseen. Agaasimaha xafiiska canshuuraha Norway, Nina Funimark, ayaa iyadu ku waramayso in ay arrintaani tahay dambi aad u weyn oo laga galayo qaranka. Waxa ayna sheegtay kormeeradii ay sameeyeen in ay ku ogaadeen isdabamarino aad u xoogan kuwaasoo bilaayiin lacaga gaarayo oo ay isdabamariyeen canshuur bixiyayaal iyo kuwo lagu sheegay fududeeyayaal. Waxa ayna sheegtay cid kasta oo lagu helay dambigaas in ay canshuurta lacagihii kaga maqnaa ay ku soo celin doonto, sidoo kalena la dul saari doono ilaa iyo 60% canshuur dheeri ah. Waxaa jira in ka badan 5,000 oo jeeg kuwa oo qaab isdabamarin ah lacagahooda loo kala fududeeyay, waxaana loo adeegsaday kaarar iyo sidoo kale arrimo kala duwan oo maaliyadaha iyo safarro iyo sidoo kale lacagaha dijitaalka kuwa oo isdabamarino la sameeyay kadib la hoos geliyay xafiiska canshuuraha oo laga dhigay kuwa aan canshuur bixinaynin. Lacagta ayaa lagu qiyaasayaa 1.9 bilyan oo lacagta Norwejiga ah, waxaana lagu soo waramayaa lacagahani in dabagal ay ku hayaan xafiiska canshuuraha kuwaasoo hadda sheegay in ay dad badan u soo xireen, kuwa kasii badanna ay ku daba jiraan. Waxaana la sheegay in kuwa fududeeyayaasha ay yihiin kuwa ugu dambiga weyn. Funimark ayaa sidoo kale dadweynaha oga digtay faldambiyada isdabamarinta canshuuraha ku saabsan, kuwa oo sheegtay in lacagta ay cuneen laga soo celin doono, sidoo kalena la dul saari doono ilaa iyo 60% canshuuro dheeri ah. Kuwa kale ayaa sidoo kale ku mutaysan doono xabsiyo iyo kiisas aad u adag. Arrimaha canshuuraha ayaa hadda si xawli ah gudaha waddanka Norway uga socda, waxaana baaritaano badan wada xafiiska canshuuraha iyo hantidhowrka guud ee waddankaasi, maadaama la soo ogaaday in dhanka canshuuraha ay ka jiraan isdabamarin aan xad lahayn oo sanadihii soo socday soo jiitamayay. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.